يدو قيمة بدن ملحة ومن لقو قبوب أدونكو قبوب يالا أفر عذر وآخرة عن أولين بأدونك يالا عذر ككوادي وقبو أدونك واللقو قبوبه نكي قروح لبضنا اللي حادك لها تميه سيقاري يمضح بمدوبايين عنديه سفيدة أهايين تؤت اللابساني اللي يابك لها مسوا قبو وقركي تميه وعداده عنديه يارك وصوقري نبيه وعصلاده هذا كوري وقاد بكليه ninka itaal roona oo ka qurux badnaa ninkaas waxa lagu leeyahay lama arag ninkaas ku dhax dhacay aad moodid shay naqaska laga saarayo kale waxa badan marka maanta ahdaafta waaweyn intay dadku ilaabaan wax yar yar oo sakayna ku mashquulaan waxa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixisay iskuulka yaad saaqidi oo ka waran yawmul qiyaamah hadaad saaqido maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin waxa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ciiboobin وكورن قيامة مركز غير نبي آدم ودن الله سكينه هداد عيبوده يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية غير نبي آدم إلا كودن بيقوبي تاقيين هداد عيبوده وحلقيا باينات سلادة إنه لشوى كوا أدكت فضوده وكورن مال انت كنتم كن أوصر نضوضة نالش يعني تشوقنور دموامسة لحدا سنة تضوات سنة سدات سنة كورن مالين كنتم كون أوصر نضوضة هداد عذابنته انت انجانية نار بالليس لقاري هدو إلى قفكو تنون بانا غانا تيدن بما غانا قرشايق ويكبح دي تنون بانا غانا هدو إلى مجنون ووالين يقفكس إلا ضبيبو باهية هدو إلى استعمال لما ديدنو لكن سيادو استعمال إسا سيدا نيكا قريقا لمسخش او استعماله هدو إلى استعمال قدر الضرورة هدو إلى كبح adduunku waa meel lagu gaajoodo gaajaha taal inta waxa maqlaysaa waxba dhamaaday waxba go'ay waxba inta kala waxaysan adduunku waa meel lagu bukoodo oo bugta taal waxa dhaqaatiirtu dawaya dhisatay jaamacado looga soo baxay kaar loo goosanay farmasiyo loo furtay weydinka arkay bugta taal adduunka geeri baa taala noloshu inaanay rasmi ahayn garo geeri iyo garow iyo gaajo iyo bugta meeshan يعني هدف كويني هدول لمو نلاشن سكا قيمة ماله الشياطين الإنس والجن نوحي سبتقين إني هدف كوين قريان ويكونوا مشغوليان أهداف يريرو سكا وحبرشا إيا كباسة البلدنج إيا هالكن كبود إيا حوكسي إيا شقيسي إيا وحي يريرو سكا ومرر بدنان هدف كبوحو قيمينين dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiya heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya nin baa kubad laba birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay berri waad haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waad dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso low kaana liibni aadama waadiya min dahab axabba an yakuuna lahu waadiyaan ina aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliyo ciidda lagu guro buu dhirgaabu rasuulku markuu qofku jannada galo ogeysiis baa la siinaya inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan ahlu janna waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligiin xanuunsan maysaan dhakhtar lagama yaqaano lambar la goosto iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhaqaatiirta aakhira shaqo kuma laha adduunka waxay goosanayaan goostan laakiin aakhira doctor dhakhtar iyo waxa lagama yaqaano jannada dhexdeeda inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan waxaad leedihiin dhallinyaranimo inaad ku noolaataan oo idinaan weligiin gaboobin awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin bal cajaa'ibka eeg bal meeshaas eeg awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebel oo hebel oo hebel oo hebel aad leedahay awowgaagii tobnaad iyo adigu 33 jir baa tihiin isku fil baa tihiin awowgaagii tobnaad meeshan aan lisba soo gaadhaynba inna lakum an tancamu fala tab'asu abadan waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan weligiin dhibaato arki maysaan
adduunyadu mar waa guug mar waa dayr mar waa diraac mar waa jiilaal waa iska arkaysaa intaa oo qofku wadaad maanta wax haysato beri wax ma haysatid reer iyo xaas hadduu jiro biyihii waa madheen baa lagu odhanaya waa go'an yihiin raashinkii waa dhammaaday saliiddii waa dhammaatay biilkii waa go'ay maa lahaa min nafaadin risiqa jannada yaalla wax dhammaanayaba maaha way ku aftaqaannaa jannadu markaad istidhaahdo war maanta malaha waxaa kugu wacnaa xoogaa tufaaxa inaad cunto laan durdurinaysaaba kuu imanaysa waa ku aftaqaannaaba iska hurhurun weeye wixii kale adeegahana khiyaar baa laguu sameeye wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuuna idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an mansuura wiilasha meeshaad joogo quruxda haddaad aragto luul saa meesha loogu firdhiyey baad moodaa baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waad tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weyddiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed aakhiro waa meel aan lagu dhiman geeri ma jirto inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abadan waxaad leedihi inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaan meeshaasaa qofka mu'minka ah ee wax fahmaya halkaasu inuu u shaqaysta laha ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan 4 shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaabo waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldame ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwa islaamnimada ku dhintay in alla inaga yeelo subxaana wa tacaala